ururka xubnaha ururka barsharafka laga soo qayb gashay iyo saxaafadaba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Si caado noo ahayd ururkan mar walba wuxuu ka shaqeeyaa arrimaha bulshada. Wafdi ayaan u dirsanay South Africa markay caafimaad ka heleen hay-adaha samafalka Accord iyo Mandela Foundation iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee joogta South Africa. Marka shirka maanta waxaan ku talagalnay maadaama wafdigii soo laabtay in wixii la soo kulmeen oo inay meesha ka sheegaan iyo fariimo ay wadaanba. Marka shirkan wuxuu ku saabsan yahay waa wafdigii soo laabtay waxay la kulmeen iyo fariimihii loo soo dhiibayba. saas ogaada. وماسية قدومية مركنا وحان مالتي الرحمن الرحيم إلى بعماد سكالة مركو هذا دمان وحين كسلام يا سلامة السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدا لصعتان بشو مركي هاي جانوري اللي لا تنكيدي وفتقوا أنو أنهار كعيو وكمل هم بشتر ديناري iyo ganacsatada weyn xaaji Muuse Ganjab iyo rag kale oo odayaal ahaa ayaan waxaan ku aadnay dalka South Africa taasoo markii ka helay caasimad sida gudoomiyuhu inii sheegay Mandela Foundation iyo hay'ad kale iyaduna hay'adaha ugu waaweyn ama noqotay boqolka hay'adood oo adduunka ugu caansan hadda oo Accord la yiraahdo ilaa 1990 ka shaqeynaysay arrimaha caalamka oo badnaadeen baa hawlaha Afrika gaar ahaan Soomaaliya. Marka anagu aan halka 22 kaga baxnay runtii aad iyo aad jaaliyadda South Africa oo runtii waxa aanu ka haysanay waxaan ka aragnay ay aad u kala duwan tahay oo jecelahay maanta in halkan ka cadeyno. Garoonkii habeenkii waxaanu ka degnay saacadda xamar markay ahayd 3 habeenimo xaqaana 2 ahayd waxa la yaab lahayd in dhalinyarada iyo rag badan oo kale oo weheliya in airportka nagu sugayeen nagu soo dhaweynayeen iyagoo calanka Soomaaliyeed wata haddaan is wareysanayna hay'adda dhalinyarada waxay noqdeen ururka dhalinyarada ee qaran hadaan khaldanayn oo runtii very active ah oo Soomaalinimada had iyo jeer u taagan oo waliba warka iyagu anagu aan toos marka hore ula xiriirin maqleen in maxay ahayd wafti Soomaali ka yimi oo aanay garanayn xataa meesha u socdaan iyo waxay ka socdaan ilaa Soomaalinimo kaliya runtii wax laga sheego meel walba laga amaano runtii xaqiiqdii waa ku mudan yihiin anaga kaliya ma aha dadka kale oo Soomaaliyeed oo socotada oo shaqada u tageen sidaas la eg bay iyaguna marba heegan yihiin waxa aad haddana farxadna sii gelisay dadku waxay had iyo jeer jecel yihiin hoteelada waaweyn iyo inay tagaan iyo meelahaas kaleeto anagu markiiba waxaanu isla aragnay on door badnay wax Soomaali ay leedahay hodeel ah ma jira haaba la yiri club iyo hodeel isku dhagan oo nuura la yiraahdo runtii marka waxay noo noqotay sharaf inaan ummad Soomaali dhex degno oo waxay qabaan iyo waxay yihiinba aanu aragno habeenii maalin halkaas meel club oo kaleeto ah oo la joogo marka dadkaaga markaad dhex degtid wax badan baa ku baxaya waxay noqotay marka xaqiiqdii dadkii aan meesha ku aragnay oo Soomaaliyeed waxay noo sheegeen inay yihiin dad aad iyo aad hadda runtii isku xidhan Soomaalida inteeda kale qurbaha kale ku nool iyo meelaha kale xataa dalka laftiga shaki ay gelin karaan waayo 50,000 oo hadda Soomaaliya ay noo sheegeen inay degaan anigu meeshaan tagnay waxay Johannesburg bay waxaana noo cadaatay qaabkii u nool yihiin hadda waa 50,000 oo Soomaaliyeed oo xaqiiqdii la oran karo waa dad xoogsata oo shaqeeya oo aan lahayn maxay ahayd dad iska baagmundo oo iska socota oo meelaha wareegay aanay jirin haddii aanu sii wareysano aad xoogaal ugu noqonay dilalka hadii jeer aan ka maqalo media say wax u jiraan waxa noqotay in ay loo badiyay wax meelo gaar ah oo dhul runtii khatar badan leh oo dad gaar ay degan yihiin oo dadka xoogaa sabool ku badan yihiin oo ganacsiguna si ku fiican yahay noloshuna khatar ay ku tahay inay dhex degan yihiin halka ana marmar la istaabto laakiin magaalada inteeda kale Soomaalidu si fiican oo sharaf leh ku nool yihiin waxa la yaab leh waxaan soo aragnay ganacsiga ay ku haystaan oo ganacsi weyn ah runtii
dhulka aanu tagno bakhaarada ahaayo alaabta 20 baabuur oo isjiid baa markaa laga rarayay hal tukaan 100 yar oo kaleetana waa ag taagnaayeen wax laga rarayay haddaan aragnayna meesha xisaabta lagu qabanayo kharashka hotelka maxay tukaanka kaliya waxay u ekeed meel bangi ah si lacagtu magaranaysa ugu shumaysa Allah u barakeeyo macnaha kaasna mid ka mid u ahaa laakiin tukaano waa weyn oo macnaha aan la qiyaasi karayn oo dhaqaalahoodu ka badan yahay dhaqaalaha aan inagu meelahan ku hayno aan runtii ku soo aragnay waana sharaf waana wax lagu faani karayo dadka kale tan sidooda kale to ay ganacsiyo kale fara badan oo kala duwan ay ku haysteen waxaana markaa ay la yaab ka noqoto waxyaan waxa Soomaali runtii la haray iyagu waa ka gudbeen waxaan u maleynayaa taana inay qayb ka qaadanayso waxa aanu tagnay meesha oo xagga dambe ka sheegi doono oo aanu qolooyinkan la aragnay laakiin tan jaaliyada haddaan aad u sii maartay tafatiro ummad isku xidhan oo leh hal maxay ahayd community oo runtii ninka community-ga u madaxdana oo kulligood ixtiraam uu ku dhaxleeyahay amiir nin la yiraaho aamir ama labada nooc loo dhigi karaa magaca oo ah nin very active runtii jaaliyada madaxeeduna nin ku habboon oo Soomaali matali karana wuu ahaa si gaar ah isagana mahad ugu celinayna halkan waliba maxay fariimo badan oo soo fareen runtii waa in la qaybsan doonaa haddii alla yiraaho waxyaalaha marka jira oo aad ay uga duwan yihiin ummadaha kale waxayaan ummadda waxa isku haya waa diinta iyo dhaqanka ummadda culimada meesha joogta waxay leeyihiin meel markisa meel culimada Soomaaliyeed isku wada yimaadeen oo aanay lahayn firqad iyo meel gaar ah ay ka socdaan waxa islaamka sheegto odayaasha culimada diinta hor kacaya ay meel ay leeyihiin xarun masaajida iyo meel ay santarada rabaan inay ka sii dhigaan qof kasta oo yimaado Soomaaliyeedna qayb kasta ka socda saasi u soo dhaweeyaan hal bayna yihiin waxayna ficnaan lahayd in ku dayasho lagu sii daydo iyaga laftigoodu waxaan dadka kala qaybiyo qofba magac meel uu la baxay ama koox ay xagga diinta laga noqday iyagu hal bay ka yihiin aad iyo aad baan ugu mahad celinayna si gaar ah noo casumeen waftigeeyii oo la casheynay waxayna waa noo sheegeen dalkan oo soo duceynayeen waxyaalaha jira ay aad uga hadleen waxa ka mid ah in South Africa iyaga kaliya ma xataa gudoomiyaha arrimahan leenahay fariimahan inii sheegayna gudoomiyaha jaaliyada waxa jirta South Africa waxay aad ugu horeysaa waa dalalkii uu ka dhaceen xornimada qaatay oo qorobo kala duwan ay ku nool yihiin haddii la yiraahdo dad cadaan oo dhowr boqol sano meesha gumaysanayay iyo dad madow oo xuquuqdooda u dagaalamayay iyo dad kale oo iyaguna Asia Hindi oo ka yimi oo dhaqaale fiican ku haysta wax badan runtii meesha ku ilaaliya xagga diimaha xoog ha noqoto xataa diinta islaamka ha noqoto dadka ugu xoog badan oo meesha ku ilaaliyo oo maartay la dugsada waa iyaga marka waxay noqotay maadaama in qorumuhu saas yihiin inay jaaliyadu ay ka baratay baan filaynaa dabeecadaas meesha ay yeelatay oo dadku ay wada leeyihiin oo wax wada qaybsanayaan oo sharci nidaam oo dadka kala hagayo marka haddaan xoogaa si eegnayna waxaan qabnaa in ummadda Soomaaliyeed halkaas joogta magacay sharaf ay ku leeyihiin ummadana runtii ay hal baa maqan meeshii waxa jirta in maxay ahayd ay dawladda South Africa ay ku horeyso oo Afrika inteeda kale kaga horeyso xagga beeraha hadii la yiraahdo xagga macdanta iyo hadii la yiraahdo maartay shidaalada hadii la yiraahdo xagga waxbarashada hadii la yiraahdo dhinac walba waa dawlad u dhiganta dawladaha adduunka horumaray ayay la mid tahay haddana u diyaar ah in Afrika haday xubin ka hesho waxa security councilka in ay noqonayso dawladda aan shaki ku jirin in South Africa ay noqonayso marka maadaama iyadu ay wax badan ay ku yihiin dadka cadaanka iyo madowga oo soo dilay oo isku meeysanay inay wada nool yihiin oo dhibaatana ka dhex taagnayn in marka ummad kaligood hal ah oo Soomaali ah inay marka maxay ahayd sidii ay arrimaha wax uga qaban kari lahaayeen oo dhibaatada dadka Soomaalida xoog ku habsatay ay ka saar lahaayeen wada xarfan ku ah marka waxaad moodaa
xaggii la rabay xiriirkii dowladda iyo maxay ahayd xaggan muxuu ahaa dowladda Soomaaliyeed iyo dowladda maxay ahayd South Africa inay meesha ka maqan tahay wax kalena maaha waxa weeyaan badanaa xiriir badan Soomaalidu xagga kore mashquul lagu yahay laakiin waxaan Afrikada hoose waxa laga yaabaa in xoogaa habac badan iska jiro si ay u dhacdayba marka adigu fariintana la soo faray waxay ahayd in baasaboorka Soomaaliga ah runtii dadka ku nool magac iyo sharaf ay ku leeyihiin laakiin fiisiyaal wax ku iman kara oo Soomaaliya la soo sin kara ma jirto arrinta waxay aad u codsanayeen in Soomaalida maadaama aan deganahay meesha ku nahay in loo kaco oo ballala xiriiro oo wasaaradda arrimaha dibadda ay bal maxay ahayd iyo maaragtay immigrationka iyo meeshii kale loo mari karayo in bal waxay ahayd na la soo eego scholarship baa la helaa scholarshipki si ay ku tegi karaan lama yaqaan mitaal afar Soomaali oo scholarship heshay dhibta ugu weyn waxay ahayd inaan dadka Soomaalida aan maaragtay baasaboorka Soomaaliya wata ay dhib ku tahay marka taal ajrigeed waxay u baahan tahay in arrintaas bal dib loo eego meeshii waxay yiraahdeen waa xilli hore oo waxaan filayaa markuu ahaa madaxweynaha Sheekh Shariif in ay markii safaaradda la furay ahayd waxay ahayd in la raacsiiyo oo markaa la diyaariyay labada dawladood inay heshiis kala dhameystaan sidii ay wada shaqayn lahaayeen xagga maaragtay baasaboorada waxbarashada iyo caafimaadka heshiiskii markaa lama saxeexin ilaa hadda 6 sano inoo sheegan inuu markaa qabyo yahay runtii markaa waa jecel laftigeedu wuxuu qabyo u yahay inaan la ogaado waayo ummad inaga baa meesha degan oo 50 kun oo qof ah marka in dhagaha lagama qarsan karo indhaha lagama qarsan karo waana fariimahana la soo faray aanu soo gaarsiinayno marka waa jeclaan lahayn inaan maxay ahayd markaan hadda shirka jaraa'id ka baxno meelaha ku haboon inaan iyagana ka wada hadallo Soomaalida hadii jordhaqa bayskeen waxay leeyihiin waxaana loogu soo shoogay anaga maxaa marka hore noo garab marteen waa wax ka weyn bay ahayd wax shacab ummad Soomaaliyeed soo fartay oo lagu soo faray ay ahayd marka qaan bay nagu ahayd inaan iyadana sidee tahay aan ku gudbino wixii kale oo soo raaxana waa sheegana markay noqoto xagga hay'adaha labada qol aan u tagnay maxay ahayd Mandela Foundation ayaa noo horeysay runtii afgarad fiican baan dhaxmaray wax badan waana tusaan runtiina waxaan aragnay qofka bani aadamku markuu siyaasadda ku jiro ama galayo ilaa maalintii waxana qaaday ilaa maalintii oo tii alla u timi waxa uu qabanayo dhan wax wada qoran bay ahayd wax uu ka tagay ma jirto meesha ku noolaa iyo meesha fariistay iyo waraaqdu qoray maalin walba waraaqdu qorayay ayaa la hayaa oo maganaysa marka waxaad moodaysaa taariikhdu nin ku talagalay taariikh inuu reebo aan ku talagelin inuu moogtahay wax ka reebto oo wax uu maaragtay ka haraya uu ka dhigtay isagu legacy-giisu u noqoto in ay wax la taaban karo madaxda Afrika ama adduunku ka faa'iideystaan marka waxaan ma meeshaas oo meel ku fiican ninkii hunguri ka hayo oo raba maxay ahayd inuu siyaasadda adduunka ama Afrika ba ka qayb qaato meel wax badan ugu soo kordhayaan marka anaga waxaan ugu xireen hay'ado kale to aad bay noo amaaneen runtii Soomaaliya xilligeedii waxay yiraahdeen lagu jiray halganka xornimada Soomaaliya qayb loo waxay ka qaadatay oo aad baan ugu mahadcelinaynaa Soomaaliya laakiin waxay rabeen meeshay ku celin lahayn payback waxa la yiraahdo bay u baahnayeen in xiriirkaas ay helaan tan xigta waxay maaragtay laftigooda ay jeclaysteen muxuu ahaa Soomaaliya in wax la qabtaan taana waxaan soo ballan qaadnay haddii la yiraahdo inaan anagu laftigooda sameynayno wixii aan karankayaga ah oo xiriir ah inaan halkan soo gaarsiino meel ku haboon oo marka iyaguna xiriir la yeeshaan hay'adda kale oo maxay ahayd Accord oo iyada laftigoodu ilaa 92 ayay arrimaha Soomaaliya ka shaqeynayeen runtiina raggii aan la kulanay ninkii raggii asaasay hay'adda iyo nin muxuu ahaa safiirka UN-ka iyo Mareykan u joogay South Africa xilliyadaas oo aad u yaqaan intii ka dambeysana hadda pension ah arrimaha Soomaaliya aad u kala yaqaan ilaa iyo raggii muxuu ahaa warlords-ka ahaa
la soo shaqeeyey qof kasta garanaya iyo nin u qaabilsanaa security-ga maxay ahayd xagga amniga Nelson Mandela laftigiisii ayaanu shirka la galay marka waxa ay aad u jeclaysteen runtii in Soomaaliya ay arkaan mar labaad oo rabta inay South Africa wax la qaybsadaan oo wax ka faa'iideystaan waxay ku noqotay runtii arrin waliba dad iska maartay socoto hay'ad ah inaanu nahay marka aad bay wax yar ahayn waxaan u jeclaan lahayn wax walba diyaar leeyahay Soomaaliya waxa ka dhaman inaan wax la qabano marka runtii arrintaasna waa gudbinaynaa haddii alla yiraaho anagu arrimahan marka aan soo taabanay oo iskugu jiray tan maxay hay'adaha caalamiga ah oo meesha aan ugu tagnay iyo tan muxuu ahaa dadka Soomaaliyeed deegaankaas deganaa annaga waxay noo ahayd runtii wax anagu markaan tagnay fikradan ka haysanay waxaan kala kulanay ay aad iyo aad u kala fogaayeen marka si gaar ah waxaan marka anagu mahad celinaa oo hawsha xooggeeda qayb ka qaatay walaalkayo oo nin ganacsato South Africa caan ka ah laga yaqaano Xaaji Muuse Ganjab oo xaggana wax ka ah runtii annagana intii aan joognay habeen maalin ama ha noqdeen qolada Soomaalida ama ha noqdeen qolada ajnabiga isaga si gaar ah isu yaqaaneen martiqaadkeena qayb libax ka ahaa nagana ag dhaqaaqin intii shiraraan galayna nala galay aad waxaan jeclahay inaan halkan saxaafadda laftigeeda aan ugu mahadnaqno walaal jira wixii kale oo ku saabsan aan ka maartay hawsha aan ka tagayna waxaan u daynayaa ambassador Dinari oo isaguna inta anaga kaamilaya laakiin codka iyagu wuxuu yahay South Africa waa dawlad weyn oo qaran ah Soomaaliyana way u baahan tahay Soomaalida waxaan leenahay mas'uuliyiinta Soomaalida iyo dawladda Soomaaliyeed iyo kulli in loo jeesto bal in South Africa waxay nagaga baaqday inaynu raadino oo ay dawladda Soomaaliyeed ay sida ugu dhaqso badan ay isku daydo in xiriirka dib u soo celiso ayaan aad u jecelahay waliba jaaliyadda codkeeda way waxa fariinta soo gudbinayna ma aha anagu waxaan meel dhexe aan ka soo qaadanay waxaan hadalka markaan rabaa inaan saa ugu wareejiyo walaalkay ambassador Dinari wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh inay South Africa tahay dalalka ugu waaweyn waxaana ka jooga Soomaaliya ilaa 50,000 oo qof oo Soomaali ah oo waliba soo gelisa dalkan bishii waxay u soo diraan 20 milyan oo dollar ay dalka u soo diraan waa garan kartaa 20 milyan qiimaha ay tahay qoysaska oo Soomaalida oo dalka guud ahaan ku nool meel walba Soomaaliya kamid jiro waxay soo geliyaan dalka oo ay noo sheegeen in markii xawaaladaha iyo inkastoo xajigu iga xoogaalsan yahay haddana waxay noo sheegeen inay lacag intaas leeg soo diraan dhinaca kale awoodda siyaasadeed ee South Africa ay qaarada Afrika iyo adduunka ku leedahay cid walba waa taqaanaa waxaan dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxdeeda sare aan maaragtay weydiisanaynaa inay arrintaasi aragti gaar ah u yeeshaan dadka reer South Africa runtii dad aad u qiimo badan waaye dad shaqaysta waaye ma arkaysid qof shahaadayo ma arkaysid qof banaan iska taagan dhalinyarada yaryarka xitaa waa shaqaystaan waxayna noo sheegeen dilalka in ay ka dhacaan township meel la yiraahdo oo aad uga fog oo aanan badnayn waliba waxa kale oo aan rabaa inaan media hortiisa ka sheego in badan ay ku yimaadaan qalado Soomaalida dhexdeeda ka dhaca oo aanay ahayn in maaragtay dadka la iska laayo fikradda laga haysto oo South Africa laga haysto dhammaanteen annaga xataa intaanan tagin waxay ahayd meel la isku dilo meel qof walba oo taga la dilayo laakiin Soomaalidu nolol fiican ay ku haystaan dhaqaale xoog leh ku haystaan maanta waa quwadda labaad ee South Africa marka laga saaro cadaanka iyo hindida Soomaalida ku soo xigto ilaa iyo ganacsigooda waxay gaarsiiyaan dalal fara badan oo South Africa ku yaalo oo ay ka mid tahay ilaa Mozambique oo ay ka mid tahay ilaa Angola dhinaca kale Botswana Swaziland Lesotho waxaas oo dhan Soomaalidu ganacsi ay ku leedahay gaarsiisa waxyaabaha ay aad uga cabanayeen ka mid ahayd in facilities ay samayso safaaradda dawladana ay runtii haboonaan lahayd in ay la xiriirto sababtoo diblomaasiyiintii aan la kulanay waxay noo sheegeen inay aad u danaynayso South Africa inay Soomaaliya wax la qabato inay Soomaaliya dhinaca diblomaasiyiinta ka taageerto inay Soomaaliya ganacsatada laftooda aad ay u ixtiraamaan way ammaaneen dad oo waqti dhow yimid laakiin ka muuqda dadka South Africa oo maanta door xoog looga jiro
waxyaabihii ay ku ammaaneen waxaa ka mid ah haddii aad wuxuu yidhi ninkii diblomaasiga ahaa haddii aad 8 saaxiibinimo aad gaajooto oo aad baxdo waxaa u tegaysaa dukaan nin Soomaali haysto waana kaa fura waana ku siinayo ama lacag wado ama hawadan marka dhaqan fiican oo Soomaalidu aad ay u amaaneen meeshii marka waxa ka maqan oo kaliya oo la rabo in la dardargeliyo xiriirkii dawliga ahaa oo ay South Africa aan la lahayn oo wax badan ay ku kordhin karto Soomaaliya maadaama lacagtaas faraha badan ay soo geliyaan jaaliyadu waxay aad hoosta uga xariiqeen oo aad ay nagala hadleen in arrimaha baasaboorada arrimaha u fududeynta sharciga oo deganaanshaha waxaas oo dhan in ay tahay inay qabato safaaradda iyo dawladda madaxdeeda sare arrintaas waa nagu soo adkeeyeen waa u gudbinaynaa waxaan rabay intaas inaan sii raaciyo markana waxaan rabaa inaan ku wareejiyo adbaayaha Haji Muuse Ganjab oo ahaa nin horay uga ganacsan jiray walina ka ganacsado isla markaasina wafdiga laftiisa qayb xoog la ka qaatay oo la'aantiis aanay suurto gelin lahayn runtiina muujiyay maaragtay dadaal fara badan ku bixiyay sidii haruntu ay arrintaasi uga faa'iidi lahayd connection ana isku xiriir badan oo lahaana noo fudeeyay marka waxaan rabaa xaajiga oo xogaal iga si ah anagu inta tinka tank ku jirtana oo kamid ah oo memberka ah oo ku maadsan yihiin warka Saciid iyo waxa dhameeyeen iyo ambassador Dinari wasiirka iyo safiirka dhameeyeen aniga waxaan ku darsan lahaa kaliya South Africa dhalinyaro waxa tagtay wadanka ka carareen ama civil war ka carareen oo iska socdo oo aan qasdigooda ahayn inay South Africa tageen waxaan dhihi karaa badda baa soo celisay oo askii socon lahaayeen juqraafina kuma socon maabna kuma socon way lugeeyeen halkaan ay mareen Tanzania mareen Mozambique mareen South Africa galeen ilaa Cape Town bay joogaan numberka intaas uu ka badnaa ilaa 100,000 way gaarayeen qaar xamar ay ku soo noqdeen qaar Yurub ay aadeen qaar Mareykan ay aadeen qaar ilaa Brazil ay sii mareen hada konton ilaa 60 baa lagu qiyaasaa dadka jooga waa dad active ah aniga 15 sano deganaa South Africa ka horan waxaan ka soo guuray Gabon markaan South Africa degay waxaan u tagay 9 community iyadoo Soomaalida leh culamaa diinkana iyagoo 5 iyo 6 ah oo firqo oo kala baxsan marka waxaan xoog saarnay aan juhdi gelinay aniga iyo rag kale oo hadda diblomaasiyiin ah oo safaaradda joogan iyo ninkan caamir leeyahay iyo rag kale iyo odayaasha dhaqameedka in aan community-dan faraha badan leh aan halka dhigno ilaa 6 bil baan ugu qaadatay 9 community baan halka dhignay kadib markas baan sameeysanay masaajidayaan gadanay maanta groupka albayaan waxay hayaan lacag ka badan $3 milyan oo asset ah oo guryo iyo masaajidyo iyo markasyo ah iyagana waxay leeyihiin umbrella leeyihiin iyo kala dambeyn baa jirto wayna casuumeen iyagoo wada dhan wadaadii marka uma maleynayo hadii la raadiyo Soomaaliya wadaada meel hal ku yihiin inay jirto community meel hal ku tahay inay jirto uma maleynayo South Africa waa waxa keenana waxa waaye waxaan aragnay rainbow nation alida South Africa waa rainbow waa kala badan Malay Malaysia ku jira Hindiya ku jira waxa ku jira maxaa la yiraahdaa cadaan waxa ku jira madow oo 5 sano 500 sano lagu meeysanay waxa keena marka waxa waaye dadkii baan ku daysanay waxaan baranay waxa la yiraahdaa charity ina wax iska qaadno waxa iska qaaditaankana waxay keentay in 3 milyan wax ku gadan asad leenahay looyara baan leenahay qof la carari kara male qof qaadan kara malaha wayna noo sheegeen habeenkii way noo cadeeyeen South Africa dawladaha waxay ku xisaabtamaan wax la yiraahdo hard currency aniga ab gacmo dheere meel baan wax ku soo wada baranay isku jaamacadan ka soo baxnay economy ka soo baxnay dawladda hard currency hadii helin ma noolaanayso Soomaaliya hard currency waxa uu noqday 30 sano la soo dhaafay dadka baxay oo remittance soo diro ama lacagaan xawaaladaha ku soo diro ayaa hard currency noqotay oo dawladda waxay heli jirtaba ka badan inaan helna ayaan u maleynayaa marka wadanka taas uu ku survive garoobay sidoo sheegay ambassador Dinari South Africa waxa ka soo baxdo ilaa 20 milyan bishi 20 milyan furdana naga soo gasho airport naga soo galo magaaladan camiran oo guryahan dhisan oo rinjiyeysan rag baa soo dira ama Mareykanka ka soo diraan ama Canada ka soo diraan ama meelo kale ka soo diraan waxaan ugu duwanahay South Africa $1 welfare ninkaad wiligiis ma jiro wadan welfare ma ah markii 40 milyan oo waxa joogto oo madow ah oo welfare u baahan marka ninka Soomaaliga waxa la leeyahay shaqayso wax baro
caafimaadna ku siinaynaa laakiin meelaad ku huyatid iyo waxaad ku noolaatid laguma siinayo that's why dadka waxa u noqdeen dad aan welfare ahayn oo shaqaysto oo muruqooda maalo tan labaad advantage-ka waxaa waaye South Africa dadka jooga waa isku xiran yihiin waa wadan oo aad nooga fog oo dhinac kale naga jiro communicationna lama laha dawladdii sharciyana ma laha wadanka ku yimaadaan waxaasoo dhan waa wixii laga doonaya dawladda marka dawladda waxaan ka codsanaynaa iyo wasaaradda arrimaha dibadda inay xoojiyaan relationshipka kii koowaad oo labada dawlad bilateraalka waa la saxiixa safaarad way joogtaa laakiin wax badan baa ka dambeeya scholarshipyada ayaa ka dambeeyo waxaa ka dambeeyo caafimaadka waxaa ka dambeeyo dadka inay safri karaan ay tourism u tagi karaan baasaboor Soomaaliya laguma tagi karo fiisan laguma siinayo marka taas waxaan ka codsanaynaa wasaaradda arrimaha dibadda inay arrintaas naga xoojiyaan tan labaad dadka akaamyo ma furo karaan waxay ku furo karin baasaboorka Soomaaliga sharci laguma saarayo asaalimka heestaana laguma furo dadka heesta waa dad 12 sano joogay oo baasaboorradii qaatay ayaa akaamyo samaysan karo marka taasna dhib bay keenaysaa tan saddexaad South Africa 15 sano deganahay 15 sano xawaaladaha waxay ahaayeen in legal ma ahayn lacagaha dad baa qaadi jiray ilaa waxa geen jiray Dubai markii 10 mar markay ku marta hal mar hadii lagu dhaco meel aad 1% ka faa'iideysay inay boqolaal ku dhunto waan soo marnay hadda waxaan xoog ka saarnay in aan legal ka dhigno lacagihii legal bay ku soo baxaan South Africa laga soo diray Reserve Bank xamar bay ku soo dhacaan way yimaadaan taasna waa guul waxayna xoojinaysaa encouragement u sameynaysaa dadka inay wadanka Soomaaliya geliyaan reer South Africa wadanka ma Soomaaliya geliyaan dawladda waxaan ka codsanaynaa waxooda inay inta ku Soomaaliya geliyaan sababtoo ah xagay guriga gataan xagay baabuurka gataan sababtoo ah wadankana ma iman karaan inaan wadanka iman karin oo ku raaxaysan karin inuu investment ku sameeyo waa ila khaldan taan qaba conceptiga oo business marka warkayga waxaan ku soo gabagabeynayaa walaalahay aqbalaad iyo aqbaleen inaan wada baxno aan South Africa wada tagno aan soo aragno South Africa waxba laga dhaqaaji karaa South Africa waxay ku fiican tahay waxyaabo badan conflict resolution waa aad ugu fiican tahay waa dad oo rainbow ah waxay ku fiican tahay beeraha waxay ku fiican tahay mining waxay ku fiican tahay maxaa la yiraahdaa waxyaabo badan ku fiican tahay jiraan ee ugu fiican tahay wadamadan kale aan daba cararin marka warkayga intaas aan ku soo koobaya faraq weyn waa arkaa anigu 2014 baan wadankan haddeerna waa 12 waxa weeyaan 2019 weeyaan faraqa aad u weyn aan arko waxa weeyaan runtii isu soo dhawaanshan jira ka bilowday dadka dhexdiisa iyo maamulka federaalka haday noqoto su'aalo fiyoobaan baan arkaa sababtu waxa weeyaan mar baad intii presska loo yeeran karo saan wax la isugu sheegayo fariimihiina la isdhaafsanayo wax weyn baa bedeli doona insha Allah waana jecelahay runtii ururkan inaan ku soo biiro sababtu waxa weeyaan qaybo badan oo caafimaadku ka mid yahay ayaan runtii dadka uga faa'iideyn karaa innagoo dhanna waxa weeyaan kulli inaan ummadeena u faa'iideyno waxtarka waxa weeyaan inaan la seexanin marka aad baa idin soo dhaweynaya waana mahadsantihiin salaam calaykum badankeeda waxaan rabnaa inaanu dadka khusayso si toos ah ula qaybsano haddaad se kaliftay oo tiribala arrintaasu meeshii safaaradda ku saartay runtii xaqiiqdii safaaradda aan safiirka ka ahayn waa aragnay waana casumeen waana soo dhaweeyeen waliba Cusmaan Soomane oo ah First Secretary-ga ilaa bilowgii ilaa dhamaadkii 100% waa ka amaan sheeganayna nin Soomaaliyeed oo shaqadiisa yaqaana oo dadkuna ay jecel yihiin ayaan ugu tagnay rag kale oo counselor ama ninkii xalane culture attach-ga xalane sidaas oo kale to lagama dhaqaaqin dhibaatada haysata waa noo sheegeen marka waxayaan safaaraddu qaybta maaragtay ay nasoo fareen oo jaaliyadu in maxay ahayd xoogaa sidii la rabay oo qayb walba la rabay in la gudbiyo First Secretary-ga Second Secretary-ga culture attach-ga commercial attach-ga ma gudbin karaan waa garan karnaa waxay leedahay weel walba madax bay leedahay madaxdeeda aan lagu la xisaabtamaya laakiin gaabkaas waa maqan yahay kii maxay ahayd Soomaalidu
safaaraddii aad bay uga ammaan sheeganayaan ragga shaqaalaha hoose laakiin xidhiirkii weynaa oo guud oo la rabay in maxay ahayd dowladda South Africa oo diyaar inoola ah dowladda Soomaaliyeed wax kuma khaldana wasaaradda arrimaha dibadda kuma khaldana laakiin shakhsiyaadka jooga la rabaa inay soo gudbiyaan inay xiriirka sameeyaan inay yaraan wasaaradda gaashaandhiga rabnaa waxa jirta South Africa xalano oo dhan shaqaalaha jooga South Africa ka yimaadeen South Africa badan yihiin raashin kala keena South Africa laga keena Soomaalida joogta wax kuma laha shakhsiyaad gaar ah oo dad unba iska leh oo macnaha xagga degan marka waxaynu soo fareen oo jeclayn inaan madaxda kala qabsan laakiin mar hadda baad saxaafadda tiraaheen war noo sheega dadka u sheega saasaan ugu kaliftay marka inaan kala qeexno oo kala saarno eedan wada laha safaaradda waxayaan xiriirkii dawladnimo baan meeshii ka muuqan fiisiyaasha hadda ay leeyihiin baasaboorka Soomaaliga waay baasaboorka Soomaaliga kaliya single out gooni looga dhigay haddana dowladda Soomaaliya ka hadlayaan baasaboorka maxaa South Africa u diideen taxalana rag ka shaqaysanayna soo galaan ma in ganacsigooda soo gaadho ma waxay ahayd marka waa inaad maartay isdhaafsi gacmeed waa inuu jiraa laakiin waa xushoonayaayo ana haddii kale ka tagay meesha laga eriyaya ma shaqaynayso waana dhabaad Soomaaliya xilligii ma garanaysaa qof shakhsi loo hebel baa joogo hebel baa xanaaqaya haddii wax laga sheego safaaradda maxay dadka community-ga joogaan culimadiinka ha noqdeen ganacsatada ha noqdeen dhalinyarada ha noqdeen kulli iyagana soo faray inaan hadalkan ku hadalo waa hadal aan haysano damaanadiisa hatta waxa yiraahdeen soo geliya maxay ahayd online-kana soo geliya laakiin wax loo baahan yahay maaha anagiiba haddii nala soo faray dee fariintii baan gudbinaynaa marka South Africa waxaan lagama maarmo weeye waxaan hadalka ugu adkaynaynaa dawladda inay il gaar ah u furtaan rabnaa dadka Soomaaliyeed dhaqaalaha haysta in la xoojiyaan rabnaa waxa weeyaan in marka safaaradda loo diro safaarad sideedaba wasaaradda arrimaha dibadda inay dib u eegto oo xoogeeda runtii Soomaaliya ay matali karto marka anoo hadda jaro xarunta talaasooyinka Soomaaliyeed waxaan u dhisnay saasoo kale ahayd waana sheegaynaa qof iyo laba laga yaabaa wax aroodo oo xanaaqo laakiin waxaan Soomaaliya wada haysaa qof shakhsiga uma haysid adiguna meesha iska meelahid way xaaladdu marka su'aal loo baahnaa bay ahayd marka waxaan inaan si yara qaadno madaxda u tagno laakiin wad naga keenteen inaan wixii jiray banaanka soo dhigno dadkiina kala soocno